بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نبينا بنور ودينا، محمد نبينا بنور ودينا، من مكة حبيبي نور فطاق المدينة، قلبي وفؤادي هانوا بك يا هادي، قلبي وفؤادي هاموا بك يا هادي، زادي وزوادي هدية محمد نبينا، محمد نبينا بنور ودينا، محمد نبينا بنور ودينا، من مكة حبيبي نور فطاق المدينة، من عمر ساحاته بذكر آياته، من عمر ساحاته بذكر آياته، من رفع راياته مين غير طه نبينا، محمد نبينا بنور ودينا، محمد نبينا بنور ودينا، من مكة حبيبي نور فطاق المدينة، من صلى صلاته والصبر بكاساته، من صلى صلاته والصبر بكاساته، للقرآن حياته مين غير طه نبينا، محمد نبينا بنور ودينا، محمد نبينا بنور ودينا، من مكة حبيبي نور فطاق المدينة، يا خير البرية نورك بهية، يا خير البرية نورك بهية، ويا الفجر كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan baa dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka xafladda qalinjibinta qur-aanka kariimka qolka eebe oo ay dhiganayaan arday ka qalinjibiyey madrasadeena Umar litaxfiid qur-aanka kariim. madrasada oo ku taalo degmada Tamburu Hurti, gaar ahaan xaafadda Wadajir. madrasada duruusta baahida waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka qolka eebe iyo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sirida nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo maadooyin kale ah xisaabta iyo afka Soomaaliga qoradiisa. xafladdu waxay dhacday maalintii oo ah maalin Arbaca, taariikhdu ay ku beegan tahay 21 bisha 11 2018. waxayna ka dhacday masaajidka Umar Calisow ee ku yaalo agaarka dugsiga, gaar ahaan xaafadda Wadajir. barnaamijka waxaa igala socodsiinaya aniga Asmaan Xuseen, waxaa igala qaybgelaya ardayda ka qalinjibisay qur-aanka kariimka. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona Macaan Dahar oo sidana barnaamijka fiidiyoga noo qaabilsan barnaamijka dowladiisa iyo weliba farsamada barnaamijka. sidoo kale barnaamijka waxaa fursado aan siin doonaa marti salafka barnaamijka nagala soo qayb gasho si ay barnaamijka uga qayb qaataan. waxaa kaloo barnaamijka marti noogu ah Sheekh Maxamed Xasan Weliye oo wakiilka ah jumciyada qayri ah oo laga adeegayay muasasada Rajaa al-Qayriya oo xarumo kula magaalada Muqdisho. jumciyadu ay bixiyaan shahaadooyin waxayna sida ardayda ka qalinjibiyay qur-aanka kariimka qolka eebe ayna maanta halkan shahaadooyin ku guddoonsiin doontaa ardayda ka qalinjibiyay qur-aanka kariimka qolka eebe. barnaamijkaas iyo barnaamij lamid ah ayaan idin haynaa. haddana kusoo dhawaada barnaamijka oo fidsan. waxaana barnaamijka noo bilaabi doona arday noo akhri doona qur-aanka kariimka qolka eebe Cabdullaahi Faarax Xasan Diirow
وهذا القرآن كنوب بالله دون البرامج كهذا عبد الله فرح سبيل وينكسر دوينيا وليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني يخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فضوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إلهي يا محادث كله إلهي جمارة ما شاء الله والحمد لله. إلهي الإسلام نقدقي إلهي جمارة عافمات كنسيي الله وقتك النسيي إلهي جيتي صدقوا من هايستي إلهي وضد ونأكسن نفسي إلهي محادث كله إلهي بقى محادثن إلهي محادث كسوناتي محادث الله محمد علينا dadka macallimiinta oo markasta u taagan in dadka islaamka diinta baraan oo waqtigooda ku bixiyaan oo maaragtay u taagan in diinta Ilaahay nooleeyaan macallimiintu way maadsan yihiin. waxaa kaloo mahad celinaynaa marka ugu horeysa ardada u dulqaadata qur-aanka Ilaahay inay bartaan xafidaan na dhageysta waalidkooda iyo macallimiintooda Ilaahay diintiisa ku howlan una dhiga fudud. waxaan mar kale mahad celinaynaa insha Allah dadka waalidka ah oo tabar kastoo haysa ilmahooda diinta ugu taagan waqti kasta ay la kulansiin baahi iyo daal iyo oon kastoo haya u garab istaagan diinta islaamka in carruurtooda baraan ku toosiyaan wadada wanaagsan kala leexiyaan wadada xun. waalidkaas waa mahadsan yahay
waxaan halkaan haddana uga mahadcelinayaa dadka culamaadiina oo maanta xafladan soo qeyb galay mar labaad iyo ardada iyo dadkii waalidka iyo dadka muslima oo maqli doona ku faraxsan intaa ka bacdi xafladatan waa xaflad ugu khayr badan xafladan waa xaflad lagu maamuusayo arday qur-aanka in bilaabeen dhammeeyeen qur-aanka in la bilaabo oo la dhammeeyo arrin aad u culus waayo qofkii uu ma haleelo qof nasiib la ayaa ilaahay haleeshiiyaa macallimiin ilaahay barakeeyo waqtigooda ilaahay u barakeeyo ilaahay haleeshiiyaa saad ogtihiinba qur-aanka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii lagu soo dejinayay waa tii canaanta laga badiyey oo ilaa uu ka yiraahdo zammiluuni waxyiga qur-aanka waxyigu nabigu markuu ku soo degaayo ru'yo saalixa ayaa ugu horeysay waxa ku xiga qur-aanku sidiisaba waxa weeye waxa kaliya oo nabiga ilaahay maaragtay lagu karaameeyey oo ilaahay noogu manaystay oo ilaahay maaragtay diintiisa in raacno oo nagu galadeystay waayo qur-aanku maaha wax ku fudud oo dugsiga la geeyo caruurta macallimiintuna ay dhigaan ma ahana waa wax